gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro ayaa maanta shir gudoomiyay kulanka bilaha ah ee gudiga fulinta iyo xogeyaasha xisbiga wadani. Kulankaasi ayaa ka warbixiyay afayeenka xisbiga mucaaridka ee wadani Barkhad Jaamac Batuun waxaanu yiri maanta oo maalin sabti ah 23 bisha koowaad 2021 وحرunta guud ee xisbiga wadani ka qabsoomay shirkii bilaha ee ay gali jireen fulinta xisbiga oo ka kooban xogeyaasha xisbiga garabada haweenka iyo dhalinyarada iyo hoggaanka xisbiga shirkan uu shir gudoominayay gudoomiyaha xisbiga mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro waxa si guud warbixin gudoomiyuhu uga siiyay fulinta kulamada xisbiyadu la qaateen madaxweynaha iyo marihii ka soo baxay kulimadii ufuuda beesha caalamka lagu dardargelinayay doorashada dalka ka dhacaysa socdaaladii gudoomiyaha iyo xubno hoggaanka xisbiga kamid ahaa hogaamiyaha xisbiga ay ugu baxeen gobolada bariga Soomaaliland ee lagu dardargelinayay diiwaangelinta dalka ka socotay iyo kuwii galbeedkaba waxa sidoo kale warbixin gudoomiyuhu ka siiyay say gobolada dalka guud ahaan iyo dadka deganba doorkay ka qaateen in isdiiwaangeliyaan oo habsan uu socod wanaagsan ku bilaabmatay si wanaagsanna ku dhamaatay shirka wuxuu gudoomiyuhu sidoo kale warbixin kaga dhageystay xubno kamid ah fulinta iyo xogeyaasha iyo garabada haweenka iyo dhalinyarada waxa shirka sidoo kale uu ku gabagaboobay in hoggaanka xisbiga fulinta garabada haweenka iyo dhalinyaraduba ay u diyaar garoobaan sidii dadka ugu wacyigelin lahaayeen inay qaataan kaarashii ay diiwaangelinta u galeen in gobolada dalka door muhiima wacyigelin ballaaran xisbigu ka qaato in dalka dadka degan oo dhani ay u diyaar garoobaan doorashadii baarlamanka iyo golayaasha deegaanka oo si final ah ay iskula qaateen xukuumadda xisbiyada iyo komishanka doorashooyinku timeline-ku caymay ugu dambeyntii xisbigu wuxuu ugu baaqayaa muwaadiniinta Soomaaliland meel kasta ay joogaan inay ka qayb noqdaan kaar qaadashada una diyaar garoobaan doorashada la asteeyay in bisha shanaad dalka ka dhacday komishanku asteeyay waxaan u mahadnaqaynaa anoo afka xisbiga ku hadlaya qof kasto muwaadina oo u diyaar garoobay inuu codkiisa ku cumaamado cidii isaga wax u qabanaysa ee cadaalad iyo sinaan dalka iyo dadkaba ku hogaaminaysa oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 tayo waa Telesom